mahadsanidin dhammaantiin sida wanaagsan aad ii sharafteen iguna soo dhaweyseen xafladan. Waxaan caawa idinkaga qayb qaadanayaa gabar laga guursaday dumar kale ama naag kale ninkeedii la guursaday. Iyadoo ooynaysa ayay soo gashay oo la hadlayso iyadoon la fahmayn waxay leedahay. Waxaan ku yiri isdeji oo istartiibi si aayare igu sheeg aan fahmo waxa kugu dhacay. Way fariisatay anoo rabo inaan fahmo mushkiladeeda. Waxaan maqlay iyadoo leh qaa'inku jaceylkii oo dhan ayuu iloobay. Markuu u wixii dhalinyarnimadeedii ku dhammaaday saan ugu shaqaynayay oon ugu ardeegayay carruurtiisii asagaba. Waxaan ku yiri kadibna waxay tiri wuxuu rabaa inuu guursado naag kale. Saacado sidaan iskugu dayay inaan dejiyo. Markay degtay ayaan ku yiri inta ooynayso bororinaysa miyaa isku dayday inaa naftaada weydiiso sababta u guursanayo mid labaad. Waayo ayuu tukal u aaday isagoo ku jecel kaana maarmi karin. Miyad isweydiisay sababta Ilaahay u baneeyo inuu guursado 4 dumar ah. Sababtoo ah si uu ugu dago nafsad ahaan iyo jir ahaan. Waxay igu tiri haddaba miyaan iska ogolaadaa oo ma ku qancaa arrintan inuu naag kale la guursado. Waxaan ku yiri may ee adiga u noqo 4 dumarka ee u baahan yahay haddaa rabtid inaad isaga kaligii yeelatid. Waxay tiri sidee shiiqow. Waxaan ku yiri nimanku waxay jecel yihiin 4 nooc oo ka mid ah dumarka. 4 nooc haddii aad naqatay falilaahi alxamd. Waxay igu tiri ii sheeg shiiqow. Tan koowaad waxaan ku dhahay hooyo wuxuu jecel yahay naxariis iyo wax bixin bilaa xuduud ah. Hooyo wax bixisa aan mana sheeg ku jirin. Wuxuu rabaa sida hooyadii qof u laab furan saamaxda markuu qaldamo, dhiirigeliso oo kor u qaada markuu hoos u dhaco, ka farxisa markuu dhibka soo gaaro, gacantiisa haysa markuu faraxsan yahay markuu murugsan yahayba aana marna faaruqin. Way dhafartaa markuu xanuunsan yahay sida hooyadii oo kale iyo markuu shaqada ku jiro iyadoo u dhoola cadaynayso. Way faraxdaa markuu soo galo guriga. Wayna walwashaa hooyada markii uu soo daaho wiilkeeda. Hooyada ayuu tabaa guurka kadib wuxuuna u xiisaa mar kale inuu u laabto u noqo hooyadiisa oo kaleeto oo naxariis badan. Midda labaad waxay tahay wuxuu u baahan yahay qof xabiibi ah oo jacayl ku mashaqaysa. Wuxuu rabaa qof cishqiga uu la wadaago qalbigiisa xadda oo qaadato. Wuxuu rabaa mid ciyaar badan kaga yaabiso quruxdeeda iyo catarkeeda iyo dumarnimadeeda. Wuxuu rabaa mid sariirta kaga farxisa una boga cadarkeeda iyo qaabkeeda iyo hadalkeeda. Wuxuu rabaa mid ku dhadheesha gacmihiisa cishqi iyo xiise aan dhammaad lahayn siisa. Midda saddexaad u baahan yahay waxay tahay mid saaxiib ah. Wuxuu rabaa mid saaxiib u noqoto hamigiisa mid uu la tashto arrimihiisa weydiiyo. Wuxuu rabaa saaxiib sir xifdiya ceebihiisa astura aysan ugu sheekaynin saaxiibadiisa iyo dariska amba ehelkeeda aysan u sheegin waxa guriga ka dhacay. Wuxuu rabaa qof caqli badan xigmad badan talayo mar badan talooyinka u dhiibto la tashto markay muhiimada ay jirto. Wuxuu rabaa inuu hadlo adigana si fiican u dhageysatid iyo inaad hadalka aadan ka badin calacalka aadan ka badin. Guriga iyo carruurtaba iyo adigaba inaad aad isku qurxisaan oo waqti aad siisaa carruurtiada iyo gurigaaga iyo ninkaagaba. Mar walba guriga soo galo uu arkaa indho qurux badan ilmo qurux badan guri hagaagsan. Midda afaraad u baahan yahay waxay tahay mid u shaqaysa. Wuxuu u baahan yahay mid u khidmaysa. Wuxuu rabaa inay gacanteeda ugu samayso cuntada mid ugu quruxda badan. Xitaa haddii ay leedahay shaqaalooyin wuxuu kaga qanacsan yahay inuu u kariso xaaskiisa ay ku xilsaartaa oo u soo habaysaa raashinka u baahan yahay. Wuxuu rabaa in dhinaciisa mar walba uu ka dareemo caraf gacmaheeda ay ku dhunkadaa. Wuxuu rabaa inuu hilmaamo dhibaatadii iyo murugtii soo martay. Wuxuu rabaa qof hilmaamsiiso qof muuqaalkiisa maqalkiisa dhista
caruurta maqalkeeda muuqaalkooda dhista ayuu u baahan yahay. malihi arintaa way fududahay, laakiin waxay u fududahay qofka ilaahay u fududeeyo. ilaahay ha idin kaalmeeyo dumarow. raggana waxaan u dardaarmayaa dumarku haddii ay idin wanaagsanaadaan inaad midiina ku ekaataan. haddii aad mid labaad guursanaysaan inaad cadaalad samaysaan. haddaad mid saddexaad guursanaysaan inaadan dumarka sida shaati oo kale aan iskaga bedelina ee dumarka xaqooda aad siisaan. sidaa haddii aad samaysaan dumarow, raggiina adinka kaligiin booyda meel kale ma fiirinayo, cid kale lama damcayo. marka waxaan idinkugu dardaarmayaa dumarow inaad naqataan sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku yiri, dumar waxaa ugu khayr badan midda markaad eegtaa ku farax gelisaa, markaad amartaa ku adeecda, markaad maqan tahayna ku xifdisaa. arrinka